mid yar baan idinku darayaa in oo arara waxa weeyaan horta anigu waxaan ahaa dhalinyaradii ugu yarareed ee SNM markii xilkii SNMtii loo baxayay dhalinyaradii ugu yararaa baan ahaa caawa halkan waxay nala jooga nin mujaahid oo ku soo dhaawacmay oo Cabdiraxmaan bay nala jooga haddii aad cid inan kalena way nala joogtaa oo la yiraahdo sabax waxa ka dhintay nin mujaahida anigu waxaan ahaa iyaga afar horta taas waa taas Ilaahay oo naxariisto oo inta sabax oo aan xasuustay odageedii mujaahidka ku dhintay dagaaladii SNMta ta kale waxaan idinka dawladeena cadaalad baynu ka sheekeynay odaygii Cabdi Diiriyo ka sheekeeyay Seenabi ka sheekeysay isku si baa looga wada sheekeeyay dawladda waxaan u dooranay inay wixii aynu tabanayno oo dhan aynu filaynay tii aynu ka helaynay inay tahay dhinac kasta tii inoo xaqsooraysay galbeed iyo bari iyo gobolada dhexe may noqon waxay noqotay mid aynu ku hungownay bay noqotay wixii aynu filaynayna waynu ka weynay waa dawladda ugu faanka badan leh waa dawladda ugu cabashada badan leh haddii la isla wax ka dhaha faankooda way cabanayaan waxa madaxweynaha haysta waa madaxweynaha noo wada dhaxeeya madaxweynaheenu maalintii dhaweed wuxuu yiri wasiirka wasiirada been ma ahayn wuu yiri waxa hadlay 3-4 qof 5 qof baa hadlay waxa hadlay wasiirka boosaha hadlay wasiirka boosuhu wuxuu sheegay inuu madaxweynuhu kaftamayay qalad bay ahayd inuu madaxweynaheeni dhamaa uu ilaaw kaftamayay waxa hadlay wasiirka madaxtooyada oo yiri maba oranba ma isnacaynkaas yiri waa labadoodii baa kala hadlay waxaanu yiri dadkan hadlaya waa dadkii siyaasadda ku saaqiday maaha isaga power line camera waxba ma ahaan jirin mar hadduu adeerkii joogo uu power siiyay oo